بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيقو maamulaha iyo milkiilaha shirkadda Future waxaan maanta way taariikhdu tahay 14 Maarch 2020 idin la wadaagayaa shir saxaafadeed daaran xaaladda guud iyo mid gaar ahaaneed ee ay ku sugan tahay shirkadda Future Traders. maalinkii sabtida ahayd ee ay taariikhdu ku beegnayd 7 Maarch 2020 goor galab ah ayaa waxa la soo wacay call center-ka shirkadda Future waxaana la weydiiyay milkiilaha shirkadda kadib hawl wadeennada ayaa ii keenay taleefanka qofkii taleefanka soo wacay waxa uu ii sheegay in uu ka socdo qaybta booliska waxaana uu igu amray in aan dejiyo gacanteedina ku dejiyo boardka shirkadda waxa aan ka codsaday inuu ii keeno warqad amar ah oo sheegaysa in aan boardka shirkadda ku dejiyo sababta oo ah waxaan ognahay shirkadda Future Traders waxa lagu furay warqad sharci ah waxaana lagu xiri karaa warqad sharci ah waxa uu ii sheegay in amarkani uu ku socdo dhammaan foorgasleyda gobolka Banaadir haddaba toddobaad kadib wali ma aragteen board shirkadeed oo foorgasley ah oo la dejiyay ama la xiray oo aan ka ahayn shirkadda Future Traders isniintii 9kii bishii goor duhur ah waxaa shirkadda soo galay laba ciidan oo ka kala socda waaxda cashuuraha bariga oo cashuur doonaysa iyo qaybta guud oo ka socda iyo qaybta guud oo u socda in ay xiraan shirkadda doodeer oo dhex martay maamulka shirkadda kadib shirkaddii way xireen furihiina waa ay qaateen maalintii talaadada 10kii bishii Maarso waxa aan tagay qaybta guud ee booliska waxaana wareysi dheer iga qaaday xubin saraakiisha kamid ah iyo gabadh lagu magacaabo Aamina oo ka socota bangiga dhexe oo ah gabadha amartay xiridda shirkadda Future waxa ay weydiiyeen dokumentiga shirkadda oo aanu hore u geynay waxaan u ballan qaadnay in aanu mar labaad siino iyaguna waxa ay noo ballan qaadeen in ay furihii shirkadda nagu wareejiyo Arbacada taariikhdu ay ahayd 12kii bishii Maarso Arbacadii ayaa waxa ay soo raacay aniga oo ah maamulaha shirkadda saraakiil ka socota qaybta guud ee booliska iyo Aamina oo ah gabadhii xirtay shirkadda iyo xubin kale oo bangiga dhexe ka socota kadib maxaa dhacay sidii ballantu ahayd markii aanu hubinay in ay qalabkii iyo hantidii shirkaddu dhan tahay aanan sugayno in furihii nalagu wareejiyo ayay si degdeg ah Aamina oo ah gabadhii xirtay shirkadda u amartay in dhammaan loo qaado oo gaarigeeda loo saaro dokumentiga ay ku kaydsan tahay xogta macaamiisha iyo kombiyuutarada ay ku shaqeyso shirkaddu haddaba aniga oo ah maamulaha shirkadda ayaa ka codsaday in aan siino database online ah oo shirkadda xogteeda macaamiisha laga heli karo balse waa ay diiday waxayna ku adkaysatay in ay qaadato waxaan ku iri aan ka tirsado tirada gudaha ugu jirta dokumenti kasta balse nasiib darro way diiday waxayna tiri ana mas'uuliyadeeda qaadaya waxa aanu ilaa hadda la yaabanahayna sababta ay Aamini ugu kacday wax ka baxsan ballankii aanu ku wada soconay oo ahaa in furaha shirkadda nagu wareejiso balse ay noogu dartay in ay qaadato dokumentiskii shirkadda oo ilaa iyo haddana aanan ka warqabin meesha yaalaan iyo sababta loo haysto haddaba macaamiisha shirkadda ee sharafta leh waxaan u sheegaynaa aniga oo ah mulkiilaha shirkadda inaan u hayno una xafidsan tahay dhammaan hantidii shirkadda ay u dhiibteen waxa kale oo aan idin sheegayaa laga soo bilaabo maalintii Isniinta ilaa iyo maanta in aanu ku jirno sidii aanu u heli lahayn dokumentiskii macaamiisha iyo furihii shirkadda si aanu idinku adeegno sidii aad hore nooga barateen waxaanan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan shirkadda mar labaad ugu furi lahayn albaabkeeda si ballantii aan la galay macaamiisha aan u fulinaa waxaanu macaamiisheena u cadeynaynaa in aanay waxba ka jirin been abuur badan oo ay faafinayaan dad ka xun horumarka bulshadeena ka macaamiisheena iyo ka dalka marka aynu waqtigeena gaadhnana sharciga ayaynu la tiigsan doonaa waxaad la socotaan inaanan maalin kaliya ku darsan ballantii aan wada galay intii ay shaqeynaysay shirkaddu
qofna uusan caqabad kala kulmin hantidiisii iyo adeegii loo ballan qaaday. haddaba macmiil, caqabadaha aanu idinka waranay awgeed haddii ay dhaafto maalinkii aan idinla ballanay, waxaanu idinka raali gelinaynaa dib u dhacaas iman kara. waxaan idinka codsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan macaamiisheena shirkadda, in aad garab istaagtaan shirkadeena si aan wadajir uga baxno xaaladan ina soo wajahday. waxaan idinka mahadnaqayaa samirka iyo garab istaaga aad muddadii ay hawshu socotay muujiseen. waxa aanu aaminsanahay in aanan la'aantii wax badan noo suurto gasheen. ugu dambeyn, dhammaan waxa aanu ugu baaqaynaa madaxda dowladeena oo ay ugu horeeyaan mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, mudane ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo hay'adaha arrintan sida gaarka ah u khusayso in ay hoos u eegaan shirkadda Future iyo sababta gaar loogu beegsanayo shirkadda. mudane madaxweyne, mudane ra'iisul wasaare, waxa aanu aad uga xunahay in indho gaar ah lagu eego shirkadda Future, isla mar ahaantaana aanan garanayn sababta keentay arrintaas. waxa aanu dareensanahay shacabkuna uu markhaati ka yahay, macaamiishaduna ay qirsan tahay in aanu bulshadeena ugu adeegno daacadnimo, wadaniyad, ammaano, howlkarnimo iyo islaamnimo sida astaanteeda ah. waxa aanu shirkad ahaan diyaar u nahay wax kasta oo sharcigu qabo in aanu marno, sidii aanu horeba ugu qaadanay liisamada iyo shuruucda dowladda, una hogaansano amar kasta oo ay ka siman yihiin shirkadu. waxaan shacabka Soomaaliyeed haddaba iyo macaamiisheena u sheegaynaa in aysan waxba ka jirin inuu baxsaday milkiilaha shirkadda oo hadda idinla hadlaya. waxaanan cadeynaynaa inaan u joogno oo aanan ka bixin dalka, una joogno sidii aan ummadayda wax uga bedeli lahayn noloshooda, waxna ugu qaban lahayn. waa mahadsantihiin.